قلعة ميديا قلعة ميديا نيوز قلعة ميديا نيوز قلعة ميديا نيوز waada daawadayaal warka galcad miidiya qodobada ku daawan doontaan waxaa ka mid ah saraakiil iyo dagaalamayaashii ugu badnaa abid oo iska dhiibay baar dheere iyagii ku badan oo ay wateen madaxweyne farmaajo loo ogaaday inuu dalka Itoobiya u doontay ciidamo fara badan oo Itoobiyaan ah si loo hor istaago xafladda caleemasaarka Axmed Madoobe dowladda Kenya oo loo ogaaday inay la wareegayso gudoominimada urur goboleedka IGAD cabdiraxmaan cabdishakuur oo shaaciyay in isaga iyo Sheekh Shariif lagu xayiray garoonkaadan cadde wasiir beelow beeniyay warbixintii uu baahiyay hanti-doorka golaha wasiirada Soomaaliya oo ansixiyay hubinta iyo tirkoobka shaqaalaha dowladda iyo dowladda Turkiga oo guul ka sheegatay dagaalka ka socda xuduudda u dhaxaysa Syria iyo Turkiga xagaag haddii aad ugu cusub tahay fadlan daawaday subscribe channelka si aad u hesho wax kasta oo aan channelkan soo gelino intii aad maqasheen oo faahfaahsan ku soo dhawaada daawadayaal قلعة ميديا قلعة ميديا نيوز قلعة ميديا نيوز قلعة ميديا نيوز xildhibaan mahad salaad oo ka tirsan golaha shacabka ayaa ka hadlay safarka oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku aaday dalka Itoobiya xildhibaanka oo war qoraal ah soo dhigay bartiisa Facebook ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo ciidan u goobtay Itoobiya kadib markii siyaasiyiintii xilkaska ahaa Kismaayo iska xaadiriyeen sidoo hadalka u dhigay xildhibaanka oo war qoraal ah soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Facebook ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo ciidan u goobtay dalka Itoobiya kadib markii siyaasiyiintii xilkaska ahaa Kismaayo iska xaadiriyeen sida uu hadalka u dhigay madaxweyne Farmaajo Itoobiya ciidan u goobtay kadib markii siyaasiyiintii xilkaska ahaa Kismaayo iska xaadiriyeen ayuu yiri mahad salaad oo kamid ah xubnaha mucaaradka ay ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ma faahfaahin xildhibaanka waxa uu kala jeeday ciidanka uu sheegay inuu u doontay madaxweynuhu Itoobiya iyadoona fila Soomaaliya ay sheegtay in Farmaajo Itoobiya uga qayb galayo shir madaxeedka urur goboleedka IGAD oo dhawaan ka furmaya gudaha dalkaasi hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay inta badan xubnaha mucaaradka ku ah dowladda iyo madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ay gaareen magaalada Kismaayo ee caasimadda gumeel gaarka ah ee Jubbaland si ay uga qayb galaan xafladda caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe markaana gobolka Gado taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa saraakiil ka tirsan ururka Al-Shabaab ku soo bandhigay gudaha degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gado saraakiisha oo laba ahaa isla markaana hubaysnaa ayaa waxaa magacyadooda lagu kala sheegay Guuliye Xareed Maxamuud iyo Cabdalle Naasir Ibraahim ciidamada dowladda ayaa sheegay raggaasi ay xiriir la soo sameeyeen ka hor inta aysan soo goosan isla markaana ay soo dhaweeyeen sidoo kale waxay saraakiisha ciidanka xoogga dalka ay sheegeen in xubnahan loo gudbin doono laamaha qaabilsan isla markaana in muddo ah lala socon doono dhaqdhaqaaqyadooda dhanka kale ma jiro wali wax hadal oo ka soo baxay dhinaca ururka Al-Shabaab oo ku aadan raggaasi la sheegay inay dhankooda ka soo goosteen arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo muddooyinkii dambe ciidanka dowladda kuwa Amisom ay kordhiyeen howlgallada ka socda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya madaxweynaha Kenya ayaa loo dooranayaa xil halis ku ah dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed sida aan xogta ku helnay dowladda Kenya oo dalka Soomaaliya oo kala dhaxeeyay khilaaf dhanka badda ah horyaalana maxkamadda adduunka ICJ dacwad u dhaxaysa labada dal ayaa la filayaa in dhawaan loo doorto gudoominimada urur goboleedka IGAD waxaana xilkaas qaban doona madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa marka loo magacaabay xilkan waxa uu kala wareegayaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo xilkaas in muddo hayay hadday dhacdo arrinta ayaa waxay dad badan isweydiin doonaan sida uu Soomaaliya u saameeyo doonto arrintaasi madaxweyne Farmaajo wafdi uu hogaaminayo oo shalay gaaray Addis Ababa caasimadda dalka Itoobiya si ay uga qayb galaan shirka IGAD ka furmaya maalmaha soo socda caasimadda Itoobiya ayaa kulamo la qaatay xalay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya kulamada ayaa inta badan diiradda lagu saarayay xiriirka u dhaxeeya labada dowladood iyo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab
siyaasiga mucaaradka ee cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ahna hogaamiyaha xisbiga wadajir oo ka mid ahaa wafuudii tagtay Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa ka warbixiyay safarkii uu ku gaaray halkaasi. cabdiraxmaan cabdishakuur oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Facebook ayaa xaqiijiyay in isaga iyo wafdigiisa xayiraad kooban ay kala kulmeen maamulka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ka hor inta aysan u duulin garoonka magaalada Kismaayo. Kismaayo ayaan gaarnay kadib xayiraad kooban oo nagu qabsatay anigii iyo wafdi aan la socday oo garoonka Aadan Cadde ka soo dhoofay ayuu yiri cabdiraxmaan cabdishakuur qoraal uu soo dhigay Facebookiisa. mashaacin siyaasiga cidda kula dhaqaaqday falkaasi waxaana xusid mudan in isaga iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed xubno ka tirsan himilo qaran oo ah xisbiga uu hogaamiyo Sheekh Shariif iyo xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ay wada raaceen hal diyaarad. hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur, madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweyne Deni iyo marti kale oo ka mid yihiin madaxweynayaashii hore ee dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa Kismaayo ku sugan si ay uga qayb galaan xafladda caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo maalmaha soo socda lagu wado inay Kismaayo ka qabsoonto. dowladda Soomaaliya ayaa u yeertay safiirka Kenya ee Muqdisho. wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa u yeertay safiirka Kenya u fadhiya Muqdisho si loogu gudbiyo cabasho ka dhan ah dowladdiisa. waxaa sidaas lagu sheegay qoraal xalay ka soo baxay wasaaradda. safiirka ayaa xarunta wasaaradda arrimaha dibadda Muqdisho kula kulmay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Cabdulqaadir Axmed Khayr Cabdi oo u dhiibay cabasho ka dhan ah xadgudub ay diyaarad Kenyaan ku sameysay hawada Soomaaliya 5 Oktoobar. diyaaradda oo siday siyaasiyiin Soomaaliya oo ka yimid Nairobi ayaa ka degtay garoonka diyaaradaha Kismaayo iyadoo aan wax fasax rasmi ah kaysan dowladda Soomaaliya. dowladda federaalka Soomaaliya waxay ficilkan u aragtaa mid burinaya mabaadi'da daris wanaaga iyo faragelin la'aanta arrimaha gudaha dalka Soomaaliya. golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa meel mariyay natiijadii ka soo baxday hubinta iyo tirakoobka shaqaalaha rayidka ee dowladda. wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Sidiiq Xirsi Warfaa ayaa golaha uga mahad celiyay ansixinta natiijadii ka soo baxday hubinta iyo tirakoobka shaqaalaha dowladda. dowladda Soomaaliya ayaa 2018 iyo 2019 waxay laba jeer tirkoob madax ka tirin iyo diiwaangelin la socotay ku sameysay shaqaalaha rayidka ee dowladda. shir looga hadlayay amniga iyo la dagaalanka Al-Shabaab oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Baydhabo. shirkaan oo muddo 7 ka socday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa waxaa loo qabtay mas'uuliyiinta maamulada gobolada iyo degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed. gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirka ka qaybgalaysa ayaa warbaahinta u sheegay in shirkan oo ahaa mid looga hadlayay horumarinta adeega dawliga ah ee baahinta adeegyada dowladda. sidoo kale wuxuu intaa ku daray in hadalkiisa si gaar ah diiradda lagu saaray sidii shabaab looga saari lahaa gobolada uu kaga sugan yahay Koonfur Galbeed. gudoomiye Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in shirkan aad muhiim u ahaa shacabka Koonfur Galbeed isla markaana waxa uu sheegay in shirkan wax badan u horseedi doono shacabka degan deegaanada Koonfur Galbeed amni, horumar iyo nabad ku wada noolaansho. markaana warkii dibadda daawadayaal, dowladda Turkiga ayaa guul ka sheegatay dagaalka ka socda xuduudda Siiriya. ciidamada Turkiga ayaa sheegtay inay dileen in ka badan 10 dagaalamo oo ka tirsanaa kooxaha Kurdiyiinta Siiriya kadib dagaal 2 cisho qaato oo ka socda xuduudda u dhaxaysa Siiriya iyo Turkiga. war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga dalka Turkiga ayaa lagu sheegay in ciidamadoodu ay qabsadeen dhul ay Kurdiyiinta Siiriya maamulayeen isla markaana ay tiro badan oo Kurdiyiin ah dileen. war ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan waxaa lagu sheegay in ciidamada Turkiga ay guul ka gaareen oo ay dileen 109 dagaalame oo ka tirsanaa maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee ka dagaalama dalka Siiriya. warar soo baxay ayaa sheegaya in dagaalka ay qayb ka yihiin maleeshiyaadka kooxda la magac baxday ciidamada xorta ee Siiriya oo taageero ka helaya dowladda Turkiga.
tobanaan kun oo ruux ayaa dagaalkan ku qasbay inay guryahooda ka cararaan kadib markii uu dagaalku ku xoogeystay magaalooyin ay degan yihiin sida Raysal Cayn iyo Talcaabadaad. Xukuumadda Ankara waxay sheegtay inay doonayso in dhulka hadda dagaalku ka socdo ay ka sameynayso aag dagaalka ka caagan oo ay ku noolaadaan qaxootiga Siiriyaanka ah ee ku qolqolaya dalka Turkiga. Dowladda ayaa cambaareeyay weerarka ay Turkigu ay ku qaaday magaalooyin ku yaala dalka Siiriya. daawadayaal waa naga intaa warkii aad kala socoteen maanta Galcad Media. haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawade mar kale channelkan subscribe dheh si aad u hesho ama aad ula socoto wararka dunida. Galcad Media. Galcad Media News. Galcad Media News. Galcad Media News.